بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامنا كنالك عندها شعبك أصحابك وحنا الأمانتود. سنة حالي إذين بلن قاضيبا وحان حنا إلى مريسية كقانو مشرح اللبان اسمان عبد البيد وأن كلكم من وطنك إنجليز كلندن اسمان حلبان كسلو كنال كلها شعبك waxaan jeclahay inaad salaanta asxaabta waraysigeena aad ku bilowdo inaad isbarto. بسم الله عبد الفتاح وما سنتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمان عبد البيد سيد شيء ولا عبد الفتاح وشرحا حلبان من دولة فدرالية الصومالية إلى هذا إن شاء الله سنة كان وصل 2021 إلى 25. جنال كان رنتي وقعص بهيئات مارتي ومحدني وانكسون دا داوضة عندها شعبك، لكن ما أنت مارتي وسوقا يورس عبد الفتاح كجنال أهان مع سلامة يا إيو ضمان مدة الصومالية دا كحرم. جنال كان ميركس تيجوغان خيري وناك بعدين رجينا إن شاء الله تعالى. دبر شو نحسن دتك أنت إتغانا موقعي إيو أنت أنا أقوم بعاد بنسلام يا بدنا سنجي. حلبان وما سنتهي وحرمنا إلى وريسية وتاريخنا الموقلة دتكنا وحترة إلى كويديو وكأجمع علينا مركورة إلى ما أنت فرصة عن السيسي وأنكو وريسنو أنيجو أوج إلى قف آد ومشغول بدل وهول بدل وسفرية هنا كجان أديقوا أنت هكذا dadka Soomaaliyeed waxa jir su'aalo badan isweydiiyaan waxa tahay nin qurbo joog ah maalin dhow waxaan soo booqday meesha aad ka shaqeynaysay runtii shaqada xafiis qurux badan oo nadiif ah baad ka shaqeysanaysay Soomaaliya xaaladeeda waan ognahay adigoo intaas san qurbaha deganaa shaqo fiican oo nadiif ah iyo nabadgelyo haysta iyo dhaqaale waxa kugu kalifay maanta Soomaaliya oo fawdo badan iyo dhibaato fara badan ay ka jirto inaad xildhibaan iyo shaqo u doonto maxay tahay runtii waa su'aal wanaagsan weeyaan walaalkay Cabdifatax. waan la socdaa maaragtay dadka Soomaaliyeed meel kasta maaragtay gudaha joogan ay yiraahdaan dadka qurbaha ka yimaada runtii waa dad soo shaqo tagayo dad aan nolol ku haysan qurbaha ay joogaan ama maxaa la yiraahdaa shaqooyin ku haysan oo nolosha ka dhacay weeyaan waxyaalahaas la isugu sheekeeyaa. waa laga yaabaa in dadka qaarkiis ay saas oo kale ay jirto, laakiin aniga oo maxaa la yiraahdaa halkan joogo shaqo fiican haysta oo maxaa la yiraahdaa caafimaad qaba alxamdulillah. waa xilliga aan door biday aan sida xilligan waa xilligii runtii loo baahnaa waddankaaga inaad u shaqaysid oo kulli meel kasta joogto qofka bini'aadanka uu shaqaysanaya, laakiin inaad dadka u shaqaysid ama voluntary ha ahaato ama shaqo oo maxaa la yiraahdaa dawladeed ha ahaatee inaad u shaqaysid waddankaaga u shaqaysid aad bay u fiican tahay. waana right time baan siri run ahaantii taasaan u door biday inaan waddanka shaqeeyo. waa mahadsantahay. waxaa la yidhahdaa dadka musharaxiinta ama madaxweynaha ahaado ama xildhibaan ha ahaado ama wasiire ha ahaado wani qofkaas kaa Kuwait baa wadata, ninka Qatar baa wadata, ninka xagu ka yimid nin qolo dowladda Ingiriis adiga xildhibaan qoladee ku wadata run ahaantii aniga cid i wadataa ma jirto. kaasmaan ahaan shakhsi ahaan waxaan ahay qof keligiis ku talagalsan inuu maaragtay codka ka raadsado dadka shacabka xaqa u leh inay doortaan. qof aan u daba fadhiyaana ma jirto. insha Allah waan rajaynayaa inaan maaragtay halkaas helo. xildhibaan waa mahadsan tahay. wakaaga mahadcelinaya waraysigaaga iyo waqtigaaga. sidaan horey kuugu sheegay ummadda Soomaaliyeed ay ku daawanaysa maanta maxaa u ballan qaadaysaa rabta inaad u qabato oo ka duwan dadkii hore. bismillahi raxmaan raxiim. runtii waa su'aal intaad maaragtay su'aal weydiinaysay tii ugu cuslayd aad weydiisay weeyaan. dadka qaarkiis marka maaragtay xil ay doonayaan waxay yiraahdaan maaragtay badan macaanaynaya oo wiyaan soo fataynaya beeraan sameynaya waxyaalahaas
run ahaantii anigu intaasoo dhan ma dhahayo wixii karaankayga wanaag ah waan qabanaya insha allahu tacaala. dadkuna waxay ku dhaartaan inay waxa ay u dhaarteen inay qaban doonaan oo ahayn musuq maasuq. waxaan rajaynayaa inaan keliya dadka shacabka ka ballan qaado inaan codkayga cidda aan u arko inay dadka waddanka dan u tahay inaan codkayga siiyo. intaasaan idinka ballan qaadaya insha allahu tacaala oon been ahayn. waxaan idin salaamaya. waa mahadsantahay. waxaan ku dhownahay gabagabadii waa soo gabagabaynaynaa. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xildhibaane, musharaxiintu waa farabadinaysaa ka warreyso iyadoo ay dadku beelan yihiin. nasiib wanaag hadda maalin markaa magaalada imid intaan kula kulmin baan dadku soo weydiiyey. bal arrintaa Soomaalidu qabaa'ilada aad bay calaamad ugu wadayeen. nin walba reerka uu ka soo jeedo markii la yiraahdo hebel waxaa laga yaabaa inay dhahaan ma hebelkii reer hebel, laakiin adigu reerka ka soo jeedo iyo magaalada dadka jooga kuma yaqaanaan. maxaa isleedahay inay sababtaa ay tahay oo reerkaaga dadka ay ku aqoonsan waayeen? runtii aniga cismaan ahaan waxaan ahay nin kusoo barbaaray koonfurta ama magaalada Muqdisho waxbarashadiisii hoose ilaa dugsigii sare, kadibna mataqaan qurbaha soo aaday oo waxbarashadiisii watay iyo noloshiisa. marka dadka inta badan waa ku wareeraan asal ahaan meeshan kasoo jeedo, laakiin markay noqoto dee Soomaaliya waxa la yidhaha 4.5 baa ka jira. qof kasta calaamad baa lagu fiiqaya meeshaadi meelaan inkama soo geyi kartid. sidaas daraaddeed anigu waxaan ahay xildhibaan kasoo jeeda gobolada SSC ama Sool, Sanaag iyo Cayn, gaar ahaan magaalada Buuhoodle. haddaan hoos usii degnana dee degmada Ceegaag. marka barasho wanaagsan waan salaamayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel kastay joogaan, gaar ahaan kuwa SSC. waa mahadsantahay xildhibaane. su-aasha ugu dambeysaan kusoo gabagabeynaynaa. hal daqiiqaan rabaa iskaga soo ururiso. waxaad isu kay raacisaa waxaa jira xildhibaano kale oo beesha aad ka tirsan tahay ka tartamaya. qofku markuu tartan galo guul iyo guul darraba labadaba waa fishaa. xiriftan iyo waxyaabo badan bayna keentaa tartanka ee dadka u dhexeeya. asxaabtaada kale haddii aad guulaysato waa sidii aad doonaysay. raggii kale waxaad dhihi lahayd haddii lagaa guulaysto walaalaha kale waxaad dhihi lahayd inaad maaragtay barnaamijkeena aad inta lagu soo gudbiyeyso. runtii anoo ka faa'iidaysanaya fursadan qaaliga ah, waxaan rabaa ragga aanu kursigan u wada tartamayno isku beesha kasoo jeedno oo gaadhaya ugu yaraan 6 ama 5. waxaan jeclaan lahaa runtii inaan isku aragti ka noqono. waxaanu doonaynaa waa kursigaas, laakiin waxaanu doonaynaa isku aragti ka noqonayna inay tahay waxqabadka bulshada ama Soomaali ha ahaato ama gobolkan kasoo jeedna ha ahaato. midda labaadna wax weeyaan runtii waxaa la yidhi wax kuu dhisnaa waxaad doonaysid hadday kaa dumiyaan wax hore kuugu dhisnaa. runtii waa nasiib darro. waxaan doonaynaa taageerayaashayada ama dadka maaragtay qabiil family kasoo jeeda wixii hore u dhisnaa inaanan ka dumin annagoo doonayna inaan wax helno. oo taas yani macnaheeda waa iska garanayaa in haddaan sii jilciyo in aan dadka maaragtay na kala taageersan aan wax maaragtay colaad iyo aan la kala gelin. nin waliba uu ku dadaalo martaqaana siduu si codkiisa isagoo saafiya uu ku heli lahaa. dhammaantayna runtii intayada isnaqaana waxaan nahay dad wada saaxiib ah oo sheekaysto oo inkastoo maaragtay siyaasadda fikrad ahaan lagu kala duwanaan karo, qof walbana u orday kursigaas inuu helo. haddana waxaan rajaynayaa qofkii khayr ummadda u ah inuu helo. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلبان عثمان عبد البيد ورنتي نسيي ورئيسي آدي قيمة بدن وكاجم هذا علينا هنا مرة بعد يمرس الدحار. وانا رجينا يا ورئيسي إنه جارد أمة الصومالية ضمان تاد لقينا فائدة سندورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.